dadku had iyo jeer ale qofka wax dhiga ama maaragtay cilmiga dadka u sheega ee cilmiga la bidaayo camalkiisana dadku eegan si aanay taasi haddaba u noqon mid fashisha bay suufiyada hore maxay yidhahdeen soomaalida cilmigiisa raac baa lagu yidhi camalkiisa raacin way iska xidhaan markiiba sheekho xoogaa yaro bashbashla hadday arkaan inaga daa cilmigiisu ma inagu eeganay muxuu cilmigu inoo taraya camalkiisa u noocnay ya soomaalida xitaa hadday riyadub leedahay dabaday ku qarin lahayd hadduu cilmigiisu wax tarayo isagu wax u tari lahaa oo anfici lahaa cid kale horta ha joogto cid kale ha joogto nin baa wuxuu ii sheegay dhalinyara oo waqtigii dagaalada sokeeya Hargeysa ka dhaceen 94kii baan wax u dhigi jiray macallin ah kitaab baan u akhri jiray usul thalathaha iyo kashf shubahaadki kitaab tawxiid kutub badan tawxiid baan u akhriyay arabsiyo halkaas isku baraysmaan noqon ninkaas ina ajab qababuha nin da ahaan ma weynayn laakiin shariicada iyo diinta barashadeeda dhibaato badan u soo maray buu inuu quraanka barto wuxuu yaana waxa xasuusanaysaa dadkii islaami jiray dhibtay u mari jireen markuu qisaskiisa kaga sheekay waa in dhalinyarada dadkaas lagu dhima marba nin baa la yiraahdaa buur oo heel baa halka xir ku haystay u tag dhulka hawdka yimigaas u joogi jiray hawdkaas waan u tagaa buur oo ilaa mar mid iyari dhiga mid waxba ii dhigin xoolaha mid igu raacda roorlooda horta raac qaasan wax ku dhigi doonaa meel badan baan u soo maray buur inaan quraanka ilaahay u barto ala kulli xaal qisasku ii sheegay waxa kamid ah laba qiso la yaab leh labada qiso waxa weeye mid wuxuu yiri mid baan uri suufi buu iska ahaa laakiin in dhowr soon buu ahaa wuxuu yiri meel yaro marka deegaan oo bootooy waxa la bootada reeraha badan deegaan baan joogay marka wuxuu yiri niman dhalinyaro oo 3-4 wadaada oo dhalinyarada xaafadaha reerka jooga oo dhalinyaradan marka hadee dambe la yiraahdo waxad iyo balay lagu sheego wuxuu wala shaambadayo niman laga farxaday waxba laga ma dhigto teetana maalin buu yiri waryaadeen warni salaada subax jamac ku tukanaya oo saful awalka ku jira ya oo xilliga u soo kacay ilaahay inuu ajiibo wax lagu eedeeyay anigu ma garanayo buu walaa nimanka salaada subax imanaya niman adduunya doonaya ma aha buu nin dhowr sun buu hayo is dhowray mugta qisada labaadna waxa ay wuxuu yiri habeenkii baa mid quraanka noo dhigi jiray buu oo rag soo maray bay kamid sidii Salman al-Farisi imsu soo maray xaq qaadashadiis oo niban u dardaarmo kolkaas wuxuu yiri mid baa badan mu garanayn buu gabgab lu iska haada badan wuxuu xoolo beer iyo xoolo badan buu lahaa buu loodu nagu raacay oo beertaan u qodnaa habeenkii badan og la shidaa buu ogtaas quraanka in yar wax badan alla self sidii inuu garay baa iska suurtagal wuxuu dabana mid dhalinyaradii xirta wax dhiganaysa baa isagoo aan arkayn qori dogaba dabada ka joogsaday qoriga kor boodo dabana dhambeelihii ayaa jaga ku sheekh ku saydmay dadka dhan dhibilo yar kulay ayarada dabku tuur waxana ka sheekh wan habaraya buudi beesha dhan baa soo timid sheekada ala sheekh mayu abad haday naga dhacdo lama soo celiyo waxa ka dhacay wala fajaa ninkana waa kooba la sirkiyo loo dhabato aaw sheekhu qaadanaya gabigiisaba haf ya waxdadka diin looga dhigan ku sheegay yarkii isa uu salba baqoode waa la iska seexay show sheekh labtiisa saacadu ka buuxdaa mid bay ilaahay xlo subaxii baa waagu bariye wadaadkii waa meyd xagan loo ragay go kiirana iska socda markaas ay yiraahdeen reer miyi way isu karaama dhigtay sheekhi baa laga kujibay ay kiirana walkii lagu calaamad saar murid laga dhigay ya halkii lagu kiira waa ku war ma waxba la akhrisato markaas wuxuu meeday wadaadku inuu ku shaqeysto waan ogaa buu gurgur markaas labada qoloxoodiyo qololuman habeenka dhulka celinay buu ilaa uu xisay kaaf ama de saacada ilaahay baa ileen qoray xilligu dhimanaye cid looma sheegin ya awliye kiira moodan dadku inaga awliyada la sheegay ee dadku ku wareereen waxyaalo noocaas oo iska aan waxba ahayn oo iska qadar ku beegmay baa laga qaar badan loo aamino inaan leegin ma cibaadeysta ma tukada aqoon diinta ma u leey abadan